السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله دمان ملكستو joogtaanba kusoo dhawaada janalkeeni Soma IT Academic intaas kadib barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa arrimaha qaxootiga haddii qofka ama uu danaynayo in wadamada reer galbeedku yimaado qaasatan wadanka dadka asiil aan faraaqinkiisa saddexdan qodob ayaa ku hortaagan qodobka koowaad oo lagu magacaabo forwarden oo laga rabo shuruudihii oo dhammaystiran procedure-kana waxa waaye processkaaga intuu qaadanayo iyo verbalife farquuninka intaas un bay ku dhex jiraan waxyaalaha ugu muhiimsan ee maaragtay qaxootinimada lagu weydiiso haddaan ku hormaro qodobka koowaad oo midkaan ah oo lagu magacaabo forward shuruudaha waxaa waaye inuu qofka wadankiisa uu land verherkomst reason wax la dhahay oo ah inuu maaragtay cabsi ay jirto wadankiisaas oo lagu cunsuriyeynayo kow uu racistis lagu sameynayo qodinist diintaada nationality dhalashadaada ama jinsiyadaada ama reer hebel iyo reer hebel waxay doonaan ha noqdaan jinsiyadaada politic inaad xisbi politic party ka tirsan tahay kooxa meesha haysan jirtay xisbiye badan aa jiray koox kale xoog ku qabsatay intii kale ma arki karta camal iyo overtaking oo maaragtay inay markhaati tahay of ama aad ka tirsan tahay behort bibala social group kooxo gaar ah arrimahaasa marka ku ogolaanaya in qaxootinimo lagu aqbalo waa inaad urur diin lagu cunsuriyey waa in jinsiyad lagu cunsuriyey waa in siyaasad lagu cunsuriyey waa inaad koox gaar oo la takooraya aad ka tirsan tahay waxaa kaloo kamid ah inaad ku xukuman tahay wax la dhahay dodstraf dil oo kooxdaas meesha qabsatay ay dadka dilaya sida dhalinyarada hadda meesha haysto oo kale shabaabka waxaa kamid ah in qofkii loola macaamilayo si lagu dulaysto oo meeshii waxaa ka jira kasoo qaad sida suudaan oo kale labo militariga ku dagaalamayo qofka naftiisa u cabsaday sidaas oo kale arrimahaas ayaa shuruudaha ugu muhiimsan ah intaas arrimood oo soo sheegay oo dhageysateen iyo waxaa kaloo kamid ah macnaha sida suudaan markaan leeyahy waxa waaye khibaltig door ee khibaami conflict dad hubeysan inay jiraan koox hubeysan oo meesha awood ku haysta iyo in uu echt khinood ama gabadha ninkeedii uu kasoo horeeyo ama echt khinote ama xaaskaaga meeshan ay degan tahay wadankan Holland ama partner aabaha fatherkaaga mother hooyada ama ilmo mindar yaarikh ilmo aad dhashay oo koorta khaleydan maalmo ka hor ee verbalife farquunin asiil in Netherlands karaykhin in la siiyey deganaanshaha Holland intaasna waad ku heli kartaa intii hore soo sheegnay waxaa la raaciyey inaad xaaskaaga joogto ama ninkaaga joogo ama aabaha joogo meeshan ama hooyadaa joogto ama ilmo dhalinyaro ah ilmaad dhashay adiga ila DNA test laga qaadi doonayo ilmaad sheegtay nasabkaaga ah in deganaansho ku haysto wadankan Holland waxaa laga hadlaya waxaa waaye mindar yaarikh 18 sano inuu ka yar yahay intaas oo la fahanteen intaas hadii la helo shuruudahaas waad buuxisay forwardenka waan ka gudbaynaa procedure-ka meequu soconayo waxaa muhiim ah qodob aan ka tagaan umalayna oo ah documenti haddii qofka documenti uu leeyahay markuu imaanayo in documentigiisii isku dhiibo laata siina ayaa laga rabaa hadduu documenti sheegtay waay waa haddii documenti uu sheegtay jiraan haddii si jirin maba jiraanba ma fahamte marka haddaan u gudubno waxaas
procedure-ka wuxuu noqonaya marka procedure-ka wuxuu noqonaya procedure aan faraaqaga isqaraatiso inaad qaxootinimo weydiisato wadanka hore waa is free way wax lacag aan laga rabo malaha laakiin arrimahana soo raacay fooqa asile procedure-ka waana ka mid aanmelden inaad ku sameyso identificatie aan registratie meesha ka imaatay aad sheegaysaa wadamadaa ka timid waxaa lagu geen doonaa AZC oo la dhaho asile sucris aanmelde centrum procedure-kaagana waxaa loo sii gudbin doonaa ACC-gaas Trouble meel la dhahayo Bincourt oo maaragtay ACC-gaas marka wareysiga lagala yeelana haddii aad kasoo degteen Schiphol ama diyaaradii iyo doon aad ku timidna kuwaas duwaanaha dadkii marka hore kugu qabtay aeroboortka ayaa wareysi kaas u qaadi doona horta waa qaabka noocaas qaabka ay dadka qaxootiga u weydiistaan wadanka Holland processkaasu mara marka intaas kasoo gudubta qofkii processkaas soo maro waxaa la xaqiijinayaa identificationkiisa oo ah waxaana xaqiijinayaa kuwa lagu magacaabo Koninklijk Marsiga turjumaan uu qabanaya qofka tolog aan telefoona turjumaan oo telefoona marka isbarayga laga yeelanayaa waxaa la weydiin doonaa dokumentiyadiisa meeshuu ka yimid iyo waxyaalahaas lamidka kadib markii wareysis laga dhameeyo waxaa loo diri doonaa ACC Trouble la dhahayo oo halkaas form looga buuxin doono documentigaasna waxaa loo diri doonaa wax lagu magacaabo indega kadib qofkii waxaa wadamada qaar waxaa la sameyn doonaa TBC Oderzuga la sameynayo wadamada qaar haddii uu tuberculose marba looma baahna laakiin haddii loo baahdo waxaa la sameynaya waxaa la dhahay RBT oo ah in qofkii maaragtay koobada geyso meel oo lagu sii hayo iyo wuxuu sugayaa alkhameen asile procedure waxaa la dhahay intaas waa inta ugu muhiimsan insha Allah markuu intaas kasoo gubto processka marka meequu qaadanayaa asalka processka interview koowaad lala yeelanayo kun labaad lala yeelanayo isku jir adiga waxaa waaye in ilaa 15 bilood loo jawaabo asalka ahayd inkastoo hadda sharci cusub la soo saaray oo wax laga bedelay kuwaas kadib qofkii haddii uu la siiyo degenaansho loskadka beel la dhahay aad ka helaysaa abspraga lagu sameyn doonaa opala waxaa ku sameyneysaa Life documentigaada markaas qofku waxaa ku yeelanaya inuu shaqeeyo waxaa ku yeelanayaa inuu waxbarasho galo marka waa arrimaha noocaas meeqa sano dhacaa meeqa sano ku dhacaa marka Life quniskaas 5 sano ku dhici doonaa marka noocyada la bixiyo dee waa sida asalka in qofka qaxootinimo loo aqoonsado ama mid wadanka Holland ay iskaga aqoonsadaan qofka maaragtay bini'aadanimo labadaas inta badan ayay dadka la siiyaa haddii 5 sano kaa dhamaato marka waxaa xaq u leedahay inaad umbi baalatayd aan faraaqan sameyso suuragal ma leeda marka in Life duunikaada lagaa qaado ama lagaa ceshto haddii jiraan caqabado lagaa qaadi karo waa lagaa qaadanaya marka koley waa qaabkaas qaabka ay dadka wadankan Holland u
soo maraan ama ay soo qaxootiga u weydiistaan. wixii intaas ka baxsan kolley fariimaha nagula wadaagi doontaan walaalaha dhiman meel kastoo joogtaanba waxaa idinkaga tegay amaano allah.